ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Qaraxa oo ahaa mid la dhigay wadada dhinaceeda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyay waxa qaraxaas ku geeriyooday laba qof oo mid kamid ah uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya halka kan kalena uu ahaa qof shacab ah. sidoo kale qaraxaas waxa ku dhaawacmay laba qof oo kale oo mid kamid ah uu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka. taliyaha ciidamada si gaarka ah ee u tababaran ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shiine Mayow Aadan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu geystay qaraxaas. waxa uuna sidoo kale sheegay in qaraxaas ay u soo qabteen 3 qof halka sidoo kalena ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale waa sida uu hadalka u dhigay. wallahi niyow qaraxdiisa soo maqasheen waa dhacay ayuu dhacay qaraxdan lama filaan oo maartay meel la iska dhigayo dhulna aan lagu aasin oo maartay meel la banaan in la iska dhigo maartay dhagxaanta korkeeda la iska saaray guud 2 qof ka dhimatay labana waa ka dhaawacantay kuwa dhaawacna maanta in aan soo qaadno rubnaha mar aan soo qaadno hadii la raadkano shacabka maalmaanteen isha shacabka hal qof waaye kuwa askariga iyo hal qof askari ah baaritaan ku jirnaa raadna waa qabanay inta kalena hadeertaan maartay waa ka sii daba jirnaa marka wallahi ilaa 3 qof aan qabanay 3 qofna maartay waxa deertaan maartay isha adiga afirbeesha ma aan keenay dadkooda aan u qabanay inta kale oo qofsan hadana maartay raadkoodan ku joognaa kama harayno. waxaa saaka lagu wadaa in dhaawacyada dadkii wax ku noqday qaraxaas loo soo qaado magaalada Muqdisho. marka laga soo tago qaraxii ka dhacay degmada Dinsoor ee gobolka Bay waxaa jira qaraxyo mararka qaar ka dhaca deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Bay.